soo taraya arrinta la yaab kale ee saddexaaslihii lagu magacaabay malabsada ee kasoo muuqday warbaahinta caalamiga isla markaasna sheegay inuu qabo saddex naag oo wareysi siiyay telefishinka caalamiga ee lagu magacaabo Universal saddexdaasi xaasna inuu sheegay saddexda gabdhood in hal qol ku qabo ayagoona wareysiga bixiyay qudhooda ka hadleen arrintaasi ayaa muddo kadib waxa uu sheegay in gabi ahaan arrintaasi ahayd mid been ah oo waxba aysan ka jirin sal iyo raad ah kaliya uu doonayay inuu ku soo caanbaxo oo magac halkaasi uu ka sameeyay been intaasi leeg ayuu sheegay kadib booliiska Soomaaliyeed ayaa xiray warbaahintii qeybaheeda kala duwan social media waa ay qaadatay arrintaasi ay aad loo falanqeynaya dadweynaha qaar ayaa sheegay in arrintaasi ay tahay dhaqan xumo aad u baahsan oo ay naba aan loo dulqaadan karin diiniyan dhaqan iyo wax walba ay tahay walow ay jiraan kooxaha asiga ka sii daran oo sameeya falal aad iyo aad dadka u la yaabaan oo dhaqan xumo ah oo ay la yaabaan waxaana la yaabay arrintaasi sida yani ku suura gashay oo saddex gabdhood oo waaweyn oo qaangaar ah dhacay in muuqaalkaasi ay duubaan oo waliba mid been ku saleysan mid walbana waqti la siinayay ayadoona ka hadleysay magaceeda sida isku guursideen xaaskii koowaad baan ahay mid baa leh tii labaad baan ahay mid baa dhahaysay tii saddexaad ahay mid sidaas oo kale ay dhahaysay warbaahinta ay la wadaageen wariye ayaa wareysanayay warbaahinta aad ay u dheereed dadweynaha Soomaaliyeed aad ay u aamineen maadaama laga soo daayay TV kuwa la isku hadlayo kamid ah Universal oo TV weyn aad iyo aad ay u aamineen markaasi ayaa laga helay warbixin kale oo dhahayso arrintii bareenka ay ahayd oo waxba kamaysan jirin oo dadka ayaan ku leeleelay sababtaasna waxay u kalifay in magac aan ku helo arrintaasi ayaa la yaab ku noqotay dadweynaha Soomaaliyeed isla markii waxa soo baxay maalmo kadib hadana ninkii malabsada ahaa in xabsiga loo taxaabay maadaama uu galay qalad aad u weyn oo ah in bulsho been oo u sheegay xagga diiniyana uu qalad weyn ka galay arrintii waxaan aragnay dad hadana u doodaya oo qaab qabiil ahaan iyo waxyaalo kale ku saleysan oo dhahaya hebel waxa muusan galin warbixintaasi ayaa ahayd midka baraha bulshada qabsatay maanta in aad iyo aad halkaas idinka soo gudbinayna waana channelkeena Dooxa Media oo lagu magacaabo isla markaasna halkan wax walba aan ku soo gudbin ilaantii aad u maasantii waxa idin rajeynaa in warbixino kale oo xiiso leh aan halkan idinku soo gudbin in alaal inta ku cusub waxaan ka codsanayaa in halkan subscribe like share comment inta bay dhahan inta barnaamij aynkan kale aan ku kulmi doono saaxiibada halkan ku midownay waxa idin leenahay waxa idin rajeynaa